masaajidkuna laga bilaabo xilligan maalin ay tahay axad ah habeen isniin soo gashay masaajidku sidaas ay dawladdu ku xidhay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودي سلامي دمان ملو بدون ذكر جوتان واني واسماعيل يتبقى دوني سين واسماعيل official كوسا هذا مركلي مقال عصب فضلا هديات كل عصب تيجي بشلك يجا سبسكرايب ده حنا إلا ودنا لايك رسيت مقالك سين سيج رسيت واد ما سنتهاي ابي وحكة سريعة سام اللي هجي وحكة اللي حوس سام اللي هجي وما تقايفان سام اللي هجي أدمي دون ديب سام اللي هجي اللي انت ما تحيد سام اللي هجي وما تقايفان سام اللي هجي أدمي دون ديب سام اللي هجي مقالكين وحوح اللي دونا dhibaatada ka taagan cudurka ka dilaacay wadamada adduunka gaar ahaan wadanka aan ku noolahay ee Nairobi Kenya maanta oo axad ah taariikhduna ay tahay 22 bisha 3aad 2020 wasiirka caafimaadka uu ka dhawaajiyay in la xir doono gabi ahaanba kaniisadaha iyo masaajidyada iyo baararka sidoo kale midda kale masaajidada sidoo kale waxay ku dhawaaqeen in ay jibin doonin sharciga dawladda ay soo rogtay oo ah in masaajidda la xiro sidoo kale Sheekh Umar ayaa ku dhawaaqay cishishii caawa ahaa oo isniin soo galayso axadna ay ka baxayso oo wuxuu ku dhawaajay in salaada cishaha ay ugu dambayso masaajidka lagu tukado oo la xiro doono gabi ahaanba ilaa ay amar dawladeed moogi alxamdulillah anaku waxaan ku fiicannahay kolay weli dhaqdhaqaaqii sida hor weli wuu socdaa inkastoo cabsi yar ay jirto weli la dareemayo dhaqdhaqaaqii wuu jiraa anaku weli manihiin sidii Yurubta oo kale in dukaamada aan kasoo adeegano aan guryaha cuntooyinka aan keensano oo guryahan Allah guryahan ka soo bixin guryihin jooga ma jiraan laakiin kaliya waxay tahay dadka waxaa lagu talinayaa shacabka Kenyaanka ah in ay taxadir sameeyaan ay socodkii badnaa ay istaajiyaan meelihii fadhi ku dirarkii ay aadi jireen inay iska daayaan ay markay shaqada ka soo baxaan ay guryahooda ay iska imaadaan aa lagu amray midda kale waxaa la shaaciyay 8 qof oo kale kuwii hore dabcan waxay ahaan 7 ilaa 8 hadda tirada hadda weli way sii socotaa dabcan ilaahana qabto kulli wax kale aan dhihi karna ma lahan wuxuu rabbi inuu ka bariyana inuu ilaahay cudurkan naga qabto kulli dhaqaatiirta sida ay sheegaan waxa fiican qof walba inuu sameeyo درادت تحضرك وإن تحضر الوجرة وقت والب ربي لبريا وحكا ولا سمينا ملا إنه إلهي عذرك وناقبته مدة كلا دقائق سفر بدن إن يرايا في عن وحامك بقى عذر كان هدوس سيدان وكوسي سعدو إن شقيين كل حرو مالي جنع السيد أي دسك كل شكل سنجري إن الحرو والله هرت نيروبي gaarahaan isli waxa ku nool masaakiin badan saaid u badan boqolkiiba 70 waxa la dhihi karaa dad ku nool Nairobi isli waa masaakiin wax saas wax dad u haysta ma lahan qof walba waa iska tabariirahay qof dad waxa jiro subaxii xaafadaha laga soo kacaa 12 subaxnimo maxaa la hungry rice la galo waxa laga baxaa hal saac habeenimo ama bacdul maqrib ama maqrib oo kale iska dhab marka wallahi dhibaatada dadka oo saayid u baahan tahay oo wuxuu ilaahay ka bariyana kaliya waxay tahay kaliya inuu ilaahay dhibkan uu naga yareeyo cudurkan intaas noo keeyo muslimiinta dhan in ilaahay uu ka qaado cudurkaas insha Allah taala hal duceysto ducooyinka hal basado gloves waa inaad xirataa maskar waa inaad xirataa wili laakiin meesan hergelin si fiican isli hal dhif ah ma ogi ma jirto wax sidaas u badan oo hadda laga cabsi qabo cabsidaas ma jirto wili waa la sheegahay ilaa hadda ma jirto
islii hal qof laga arkay ilaa hadda lama dhihin ilaahayna ma tuso laakiin ilaa hadda ma jirto waxa la dhahayo isliya cudurkaas qof qaba laga arkay ilaa hadda lama maqlin ilaahana qabto kaliya kolley taxadarka hala badsho insha allahu tacaala shaqooyinkiigana waxaan kula talin lahaa shaqooyinkiina markaad kasoo baxdaan inaad turuu xaafada u aadin waayo meel lagu tukanayo ma laha masaajidada waa la xiray baararkii waa la xiray maqaayadihii weli lama shaacin laakiin saan jeclahay xaafadaha iska imaana isku cuntada karsada alxamdulilah waxaan ku fiicannay kolley anaka manihin sida yurubtas oo kale ee la dhahaayo qofkii banaanka lagu arko waxaa lagu ganaaxaa 1500 ilaa 2500 ilaa 2500 oo pound ama oo euro lagu ganaaxaa oo kale anaka weli lama shaacin wax ganaax ah laakiin dhaqdhaqaaqa weli wuu socdaa dhaqdhaqaaqii hore weli wuu socdaa sidii weli waxaad weli ma arkin ilaa hadda wax sidii isbedel ilaa hadda la sameynay ilaa hadda baan arkin isbedel oo sidii hore isbedel ka duwan ilaa hadda baan arkin weli shaqooyinku way socdaan alxamdulilah sidaas inaan kusii wadnaa jeclaan lahaa inaan ilaahay cudurka sanaa qabto marka yareeyo taxadarka hala badsho insha allahu tacaala khiyaareey guryihiina ha kasoo bixina shaqada marka kasoo baxdaan turuu xaafidin umaada banoonihii aad ciyaari jirteen joojiya fadhi ku dararka sidoo kale dartaaranku wuu fiican yahay in wax laisku sheego insha allahu tacaala fadlan muuqaalkii hadda aad ku cusub tahay muuqaalkan aad daawatay ha ilowin inaad muuqaalka aad subscribe saartid like-kan aad saartid muuqaalkiina caawintaasi uu egyahay waxaynoo bilaa muuqaalka xiga anigoo caafimaad qaba idinku caafimaad qaba waxaan kiiga tagay sida ay nabadgeliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakatu